anigu maanta xusbi cusub ama sida rag garashadoodu liidataa oo sheeganaya isbahaysiga ay u dhigeen hadalka in la iibsaday anigu nin la iibsaday ma yihi nin adduunyada dar haystana ma yihi nin magaalada Hargeysa u dhashay kuna dhaqan noloshiisana ay ku filantay ilaahay mahadii baan ahay taasaan ka leeyahay xisbigana midna waa xisbigan ka tirsanaa waa xisbigaygii baan soo noqday kadib iyaga bale afduub iyaga inay yar yiri waa la afduubay xildhibaankii horta hadii cid la afduubay ana xisbigaygii laga afduubay oo qasabay ku noqotay in la yiraahdo wadan iska sharax aniguna maadaama musharaxan ahaa qof beed gacmaha ku sitaan ahaa qof u baahan cod bixiyayaashii baan ahaa qof diiday in dadku ka kala qaybsamaan ayaan ahaa duruufaha daraadood way noqotay inaan wadan iska sharaxo maantana su'aal baa hor timid anigu xildhibaan baanay dad baa soo saaray dad baa dhaqaale igu bixiyay aad iyo aadna dhammaan waan ugu mahadnaqayaa muwaadiniintii reer Soomaaliland ay doortay anigu maanta waxaan leeyahay dadkaygu halkii dantu ay ku jirtay ayaan maanta idii jooga dawladaydii baan idin martiyay iyadaan idii weydiiyay ballanqaadna aan ka qabaa in la idin qabto intii ay awood u saamaxdo ee ugu badan ee waliba xildhibaan lagu maamuuso haday tay agabadii waxbarashada caafimaadka iyo wixii la mid ah waan ka daalay Mucaarid daraxa waan ka daalay in maanta aniga xarig qabiil lay garaaco daadaan ahay maanta dhowr iyo konton qof jira baanay anigu maanta taagu ma hayo inaan tala ka qaato ninkii reerka buurta gacan libaax saaray ee 7 qodob ee hanjabaada ka soo saaray ee 24 saacadood iyo muddada gaaban u qabtay war maalin walba hanjabaad aan meel gaadhayn nin wadaan ugu ma raacayo waxaan iyana aad uga xumahay inanka yar dhalinyarada ah ee xildhibaanka ah ee anigu Hargeysa ku dhashay ku barbaaray yiri Khadar waa la afduubay anigu nin Hargeysa lagu afduubi kara meeyiye adigu waxa tahay nin yar oo magaalo kale ka yimid oo caasimadii soo galo martigu waahay horta soo dhawow ragga isuursaday odayaasha ah ee maanta dhalan habaabista u tilmaamaya shacbiga Soomaaliland ee inta ma kasta luminaya waxaan leeyahay xirsow adigu waad soo martay madaxtooyada waxaad ka ahayd nin wakiilka madaxweynaha waxaad ahayd nin yar oo kulmiye ku soo abaabay waxaad ahayd nin abaalkiisa Ilaahay oo galay ka baxay waxaad ahayd ninkii qaawiyay ee sida foosho xun u galay ee kaga dhaqaaqay madaxweynihiisii ilaa bayna abaalkii maxamuud xaashina isaga caawa tala weydiin maayo ninka maanta dadku leeyahay isbahaysi baynu sameeynaynaa iyo Soomaaliland baynu wax u qabanaynaa waa ninkii shalay caayay lahaa codad bay qabaanoo Soomaaliland kamay tarin Cabdiraxmaan Tuur taariikhdiisu ka saaray waxaan u maleynayaa mana adiga maalinta madaxtooyadu soo gashay baa kugu horeysay taariikhda Soomaaliland